adduunyadan aynu joogno waa mid xaalka dadkeedu uu isbedbeddel badan yahay. Kuwo waxay ku sugan yihiin ciidda hoosteeda, riyooyinka ayna nagu soo booqdaan. Kuwana waxay ku sugan yihiin ciidda dusheeda, salaantana nagama radiyaan. Kuwo waxay degan yihiin qasriyo qurux badan, laakiin nolosha ayay ciriiri ku dareemayaan. Kuwo kalena waxay degan yihiin guryo iska hooseeya ama xitaa godad ah, laakiin laabtooda Ilaah ayaa u wanaajiyey oo ay ku faraxsan yihiin. Kuwo waxaa jira Ilaahay caddaan iyo qurux u dhaliyey, laakiin qayiran oo madmadow. Sidoo kale waxaa jira kuwo madmadow oo nuur iyo iftiin fara badan uu ka baxayo. Waxaad noqon kartaa mid ay la dhasheen walaalo fara badan, laakiin kelinimo ku nool. Sidoo kale waxaad noqon kartaa mid aysan la dhalan wax walaal ah oo keligii ah, laakiin walaalo aan la dhalan ku dhex nool. Waxaad arkaysaa saaxiibada oo dhabarka kaa tooganaya. Sidoo kale waxaad arkaysaa cadowgaaga oo naftaada badbaadinaya. Waxaad arkaysaa kuwo taajiriin ah oo laaluush qaadanaya. Sidoo kale waxaad arkaysaa fuqaro wax sadaqaysanaya. Sidaas markii ay tahay ayuu Ilaahay ku magacaabay adduunya ama tii dhaweyd, kumana magacaabin culya ama tii dheerayd ama sarreysay. Samafalkaaga wanaagsan iyo la dhaqankaaga dadku ma hilmaamayaan. Hana u shallaynin ilbiriqsiyo aad dadka noloshooda farxad ku soo kordhisay, xitaa haddii aysan mudnayn farxaddaasi. Marka la dhaawaco dadka wanaagsan, qalbiyadooda waxay wacd ku marayaan inay aargudan doonaan. Laakiin markii ay helaan fursad dahabi ah oo ay kaga aargudan karaan, damiirkooda ayaa celinaya oo ay iska cafinayaan. Alcafu cinda almaqfira. Ha ku xugmayn mustaqbalkaaga hadda sida aad tahay. Maxaa yeelay ambiyadu waxay ahaayeen kuwo soo ilaalin jiray ariga, laakiin waxay hogaamiyeen ummado. Waxaana saxiix ah in haweenku dhagartoodu ay weyn tahay, laakiin nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu Ilaahay ka magan galay qahriga ragga. Waxaad ku sii sugnaan doontaa wareegga murugada iyo dayacnaanta inta ay salaadu muhiimadaada koowaad ama garabkaaga ka maqan tahay. Salaadu waxaa lagu sheegay liibaan iyo guul. Xayya cala asalaat, xayya cala alfalaax. War salaada u kaalaya, war liibaanta u kaalaya. Markaa sidee buu ku liibaanayaa qof aanan tukan salaada? Waxaad xurriyad u leedahay inaad dhibsato qof ficil qaar uu sameeyay dartood, laakiin xaq uma lehid inaad u ekaysiiso ama aad ku cabirto shakhsiyadiisa oo idil ficiladaas uu sameeyey. Iska sug, farajku iyo guushu way iman. Waxaa laga yaabaa waqti uun guul aad rajaynaysay inay kaa soo daahdo. Taasi macnaheeda ma ahan inuusan farajku imaanayn. Ilaahay aqdaartiisa waxaa lala dibdhigay naxariis iyo khayr fara badan, laakiin annaga waxaa ah qoom degdeg u ka batay. Waxaan hubaal ah shay uu Ilaahay kuu qoray inaysan cid kale helaynin. Keliya waa inaad sugtaa oo aad laabtaada dejisaa inta ay ka imanayso naxariista Eebe. Nin xakiim ah ayaa waxaa la weydiiyey, midkaad jeceshahay, walaalka iyo saaxiibka? Wuxuuna ku jawaabay, waxaan jecelahay walaalkay goorta uu noqdo saaxiibkay, waxaana jecelahay saaxiibkay goorta uu noqdo walaalkay. Oohin kuma sugnaanin kolka ay nafaqaali ku ah agtaada ay kaa tagto, laakiin oohin waxay ku sugnaatay kolkay toobadda ku gafto oo ay ku dhaafto. Astaghfirullah wa atuubu ilayh. Sidoo kale dheh, Ilaahayow hadduu jiro mid xaasid ah oo aan jeclayn inuu arko farxaddayda, ku irsaaq farxad ilowsiisa arrinkayga. Annaga dhammaanteen waxaynu ku jirnaa imtixaan. Ilbiriqsi kasta oo soo dhowaada inay caleenteenu qalasho oo ay soo dhacdo, waqtigeena gabagaba noqdo, ma ogin xilligaas annaga. Laakiin mar walba waa inaan diiradda saarnaa raad wanaagsan oo aynu kaga tagno adduunyadan. Dhammaanteen acmaasheen iyo qulubteena Allah inuu wanaajiyo, jannadana Allah inuu kulmiyo dhammaanteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelinayno ee annagana ay nagu noqotay dhiirigelin. mahadsanid.